Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal idil ahaantiin meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada janaalka ogaalka xogaha. waa qiso murugo badan oo ku dhacday hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan wadanka Ustiriya. hooyadan waa ay diiday in magaceeda ay sheegto, waxaana qisadan ka soo manguuriyay mid ka mid ah dadka ku nool wadanka Ustiriya, kaasoo markii uu maqlay qisadan baaritaan badan ku sameeyay. qisadan ayaa sidan u bilaabatay. 4 sano ka hor waxaan aaday xajka iyo dhulka barakaysan si aan u soo guto waajibaadkii lagu lahaa. waxaan hore u sii watay gabar yar oo aan dhalay oo markaas da'deedu aan ku qiyaasay 9 sano. gabadhayda waxaan la tagay xajka, waxaan ku degay qoys Soomaaliyeed. markii aan tagay xajka waxaan go'aansaday in gabadhayda aan horay u kaxaysto, walow qoyska Soomaaliyeed ay u qalqaalinayeen in gabadhayda ay la joogto oo aan ka reebo, balse waxaan go'aansaday inay la dawaafto. gudaha ayaan u galnay xajka, waxaana bilownay inaan hawlaheennii gudano. markii aan bilaaway dawaafka ayaan waxaan waayay gabadhaydii. waan raadiyey waan waayay. murugo hameenkaas oo dhan ma aan saaxan, walwal iyo walbahaar ayaa ugu sii badanayay. waxaan u gudbiyay qoliyaha ka shaqeynaya xajka ee iyagu loogu talagalay. waxay sameeyeen baaritaano kala duwan, waxay la hadleen dadkii ku sugnaa xajka, waxay sameeyeen TV-ga ayay ka hadleen ayay tiri hooyadii. maalinba maalinta ka dambaysa waxa ay ugu sii badanayay murugada ku saabsan gabadhayda oo aan waayay. sidii ayaan ku joogay muddo 3 bilood ayaan ku sii sugnaa magaalada Maka ee barakaysan si aan u helo gabadhaydii. waxaan la xiriiray safaaradda Ustiriya ee magaalada Riyaad ay ku leedahay, anigoo u sheegay in gabadhaydii la leeyahay. mar walba waxay igu qancinayeen in gabadhaydii la heli doono. sidii ayaa baaritaankii ku sii socday. markii aan ka rajabeelay ayaa waxaan go'aansaday inaan dib isaga noqdo dalkayga Ustiriya. hooyada Soomaaliyeed ayaa tiri waxaan dib ugu sii laabtay Ustiriya, waxaana la midoobay qoyskaygii kale. murugo ayay igu hay jirtay. waa macquul in mararka qaar aan iska sabarsiin jiray, balse mar walbaahi waxaan niyadda ku hay jiray in gabadhaydii ay nooshahay ayay tiri hooyadan. sanad walbaahi waxaan soo aadi jiray xajka si aan bal uga sii raadiyo gabadhayda una shaqaysto acmaal wanaagsan. sanadkii 3aad ee xajka aan soo aadayay ayaan waxaa la kulmay arrin la yaab leh. markii aan soo aaday xajka waxaan indhaha ku fiirinayay qaybaha kala duwan ee Kacbada. waxaan sidoo kale eegayay dadka tirada badan iyo caruurta. aniga ayuu meelaha fiirinaya ayaan waxaan arkay caruur yar oo nin madoow oo ku toogsanayo, balse haddaan fiirshaba waxaa ku jirta gabadhaydii aan dhalay. subxaanallah, labada gacmood ayay ka go'an tahay. waan ooyay, waan baroortay, waan ku orday gabadhii. markii gabadhii aan u tagay oo aan fiirsho aan irahay heblaayo, horay ayay ka soo hadashay oo hooyo ayay iigu jawaabtay. shaki kuma jiro waaba gabadhaydii. isla markiiba waxaa igu soo booday ninkii madowga ahaa oo yiri gabadhan aniga ayaa dhalay, ee maxaad ka rabtaa? waxaan ku qabtay dharbaaxiyo anigoo weliba nacalada ku ridaya. markaasi waxaan soo kala dhex galay ciidamadii ilaalada ahaa ee ku sugnaa xajka. waxay yiraahdeen labadiinaba waxaa la idin geenayaa saldhigga booliska. markii saldhiggana la geeyay, ninku waa nin Suudaaneys ah. waxa uu ku doodayaa in gabadhan isaga uu dhalay, isagana uu ku toogsanayay, sidaasna ay ku soo dhicinayeen biilkoodii. anigu waan murugeysanahay. markii askartu waxay weydiiyaan uma bajeedaba, ilaan waxaan ahay hooyo cunugteedii heshay, haddana ku aragtay darxumo aad u daran maadaama la jaray labadii gacmood ee Ilaahay uu u sameeyay uguna talagalay inay wax ku qabsato. askartii ayaa si gooniyo ula baxay gabadhii, waxaana ay weydiiyeen bal siday wax u jiraan. gabadhii waxay markaas ahayd qof qaangaar ah, waxayna ku tiri anigu waxa ay dhashay islaantan, waxaana isoo watay ninkan. waxa uu ugu yiri aniga ayaa aabaha ah, maanta ka bilaabata aniga ayaa ii toogsanaysaa. markii uu sidaas yiri waxa uu iga jaray labada gacmood, sidaas ayaan ku toogsanayay ayay tiri gabadhii. ciidamadii booliska isla markiiba waxay xireen ama xabsiga ay dhigeen ninkii, iyagoo anigana yiri baaritaan ayaa la sameynayaa. gabadhii ayaa waxaa laga qaaday dhiigga loo yaqaano DNA-da, kaas oo lagu fiirinayay in aan aniga dhalay. baaritaankii kadib waxaa soo cadaatay in gabadhu gabadhayda tahay. ciidamadii waxay ii yiraahdeen ama ii sheegeen in ninka la dili doono, waxayna igu yiraahdeen dhulka barakaysan ee Ilaahay xurmeeyay ayuu ninkan dhiig ku daadiyay
oo qof muslim ah ama gabar yar dhibaato ugu geystay sidaas darteed dil ayaa lagu xukumay oo waa la dilayaa intii meesha aanu joognay ayaa waxaaba soo istaagay gaari madow waxaana ninkii oo indhaha loo geliyay mara madow lagu qaaday gaarigii waxaa dhacday inay ii soo wacaan safaaradda ustiriya ee magaalada Riyaad waxay ii sheegeen in gabadhii la helay balse waan ogahay anigu iyagu waxay xiriiro kala duwan la sameynayeen safaaradda iyo sidoo kale ciidamada booliiska ee ku sugan dalka Sacuudiga inkastoo ciidanka booliiska aysan isku dayeen in mar walba ay baaritaano sameeyaan haddana safaaraddu way ila xiriirisay anigu mar waan farxaa mar waan ilmeeya maxaa yeelay gabar 3 sano iga maqneed ayaan helay haddana waxaan helay iyadoo labadeedii gacmood ay go'an yihiin balse Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay waa la idin imtixaanaya arintan waxay ahayd imtixaan waxaan ka soo duulay magaalada Riyaad anigoo soo aadaya Ustiriya waxaa garoonka igu sugayay qoliyo sheeganaya inay xuquuqda carruurta dhowraan waxay igu yiraahdeen wax badan ayaan u qaban doonaa iminka gabadhaydu waa ay joogtaa waxa mahadsan Allahi subxaanahu wa ta'aala dib labadeena noo kulansiiyay haddana noo mideeyay waa jirtaa warar sheegaya in gabadhayda gacmo kale loo sameeynayo balse Ilaahay ayaa wax walba ku mahadsan ayay tiri hooyadii Soomaaliyeed qisadan waxaa laga soo maanguriyay hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan wadanka Ustiriya waxaana idin soo gudbinayay Cabdullaahi Xaashi Roobday